dhegtaada oo noqoto weel furan oraah walba oo dhar xigmadeed xiranina ay gasho waa khatar weyn oo ku horseedi karta dayow iyo jahwareer suuqa xigmadaha waxa looga adeegtaa si xirfadaysan ha u miisan sidii baradhadii oo kale ee dhadhami intaadan aaminin ka hor tiradan kooban ee mira murtiyeedka ahi waxay ku sii xaqayaan jidkii liibaantaada haddaba ka bogasho habboon ha u sheegan qofna dhaawacaaga waayo adiga weeye midka dhaawacan dhaawacuse ma xanuunjiyo midka dareemaya xanuunkiisa mooye ha ka tegin qof kuu baahan adiga laga yaabee inaad tahay qofkii ugu dambeeyey uu rajeeyo qofkaas xaalad waxaa ugu adag inaad ku dul ooynaysa firaashkaada aamusnaan dhammaanna ay moodayaan inaad huruddo lacagtu waxay kuu keenaysaa saaxiibbada danaysayaalka ah quruxduna waxay kuu keenaysaa saaxiibbada hawaraaca ah akhlaaqduse waxay kuu keenaysaa saaxiibbada nolosha wakhtiyada ugu qurxan ee farxaddu waa goortii ay kuu xaqiiqoobaan waxyaabo ayna dadku malaysanaynin inaad awood u leedahay inaad ka xaqiijin karto maadaama uu allaah og yahay wax weliba yaynan ku saamaynin malada dadka iyo waxaad ula muuqato keliya wanaaji waxa idiin dhexeeya adiga iyo allaah kadibna aamin in alla yahay midka u gargaara kuwa la dhibaateeya ogowna waxaa kugu filan la jirka uu allaah kula jiro laga yaabay inaad ku disho ama aad ku dhaawacdo dareenka qof kelimad aad u qortay keliya haddaba iska hubiya xuruufaha ka hor intaydaan qorin haweenayda qurxan waxay soo jiidataa ninka saacado balse haweenayda cafiifadda ah waxay samaysaa nolosha ninka zawjkeeda ah oo ay haysataa ilaa inta ka hartay noloshiisoo idil haweenayda dhowrsoon waa sida ubaxa khafiifka ah oo kale la jirkeedana ma hagaagayo ilaa inaad xanaanayso mooye haddaba iska jir inaad goosato ubaxaasi haddii aadan qadarin karaynin oo xanaanayn karaynin haweenka tan ugu qurxoon waa midda gaabsataa carabkeeda dheeraysaana aamusnaanteeda haweenka tan ugu wanaagsan waa tan ku adkaata samirkeeda farxad gelisaana kuwa kale haweenka tan ugu doqonsan waa tan qurxiso wejigeeda xumaysaana ficiladeeda farxaddu waa sida balanbaalista oo kale haddii aad daba ordo way biibaysaa haddaadse aayar u fadhiisato laga yaabaa inay ku soo duldegta gacantaada haddaba samir qurxoon goortii aadan garanaynin sidii aad u sharixi lahayd dareenkaada ama aad u difaaci lahayd nafsaddaada markii ay kugu cuslaadaan arrimaha haddaba xasuusnow inaad leedahay rabbi og waxa ku jira qalbigaaga astaamaha ugu xoogga badan ee jacaylka lagu garto waxaa ka mid ah naxariis timaadda wakhtiga uu dulqaadku kaa dhammaado jacaylka dhallinyarada salligiisu ma ahan qalbiga ee waa indhaha kuwa wax jecel waa sida kuwa buko oo kale waxaa loo hadiyeeyaa wax farxad gelinaya waa sidaas noloshuye u dulqaado dhibaatooyinka oo qaado qadarta waa rajo rumoobaysa iyo rajo isbeddelaysa kulan bilaa balan ah iyo kala fogaansho bilaa sabab ah ma jiro bilow aad filanaysay mana jiro dhammaad aad doonaysay waa sidaas nolosha sidaasi ayayna ku soconaysaa eesad ka dhigo samirka iyo salaadda